بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ومجلس كيني طبنات نفسه رميني الحاكة إشان واحد رجيني ونغضك يقدم بيه ونعاوك سوق بقبينه وحين كصور هني دور قضب بدن كسو جرني waxa kamid ahaa jiritaanka Ilaahay adilada lagu cadeynayo marka adiladu way badan yihiin laakiin waxaynu soo dooranay ilaa 4 daliil oo isleeyahay waa kuwa dadku ay fahmi karayaan waayo wixii dadku isla yara fahmi karayaan dadku ay maxay hayday aqbali karayaan dadku ay qaadan karayaan ama ay si fudud u fahmi karayaan ayaa muhiim ah marka maadaama dadku isku dhex jiraan dad aqoon leh iyo dad aan aqoon lahayn taasi waxay keenaysaa marka daliil la fahmi karayo ama fudud in insha Allah aynu soo qaadano kuwii tacqiimka lahaa oo iska daynay 4 daliil bay marka aynu soo tilmaanay ka koobaad wuxuu ahaa daliilul khalqi wal iijaad daliilka abuurka iyo jirsiinta ka labaad wuxuu ahaa kullu faqirin la budda lahu min ghaniyin shay kasta oo baahana ah waxa waajiba inay ka dambayso oo uu helo cid maxay hayday qani ah daliilka saddexaad ee soo marnay wuxuu ahaa al mu'jizaat daliilul mu'jiza oo isna aynu soo tilmaanay iyo daliilul itqaan wa nudum oo ahaa kii caawa inoo harsanaa sugidda iyo nidaamaynta iyo qaabaynta iyo qaabka quruxda san ee adduunkan markaa uu samaysan yahay ama makhluuqaadka Ilaahay uu abuuray bay u samaysan yihiin marka waxa inoo harsan waxa uu ahaa daliilul itqaan daliilul khalq wal iijaadna qayb waynu ka soo qaadanay laakiin cajiradii bayna kala go'day marka daliilul khalq wal iijaad iyo daliilul itqaan bin caawa ku soo koobsan doona insha Allah waxaan ka horreysiin lahay marka hal muqaddimo iyo iyaguna muqaddimooyin afar noqon doona ama afar qaacido kooban oo insha Allah haddii la fahmo wax badan iyadana fududaan doonaan kow waxay saddex ikhtiyaar baa inoo bannaan oo markii aynu soo marinay adduunyadu inay bilow leedahay aynu soo sheegnay inaynu nidhaahno adduunyadu weligeed iyo allaheedba qadiim bay ahayd iyo inaynu nidhaahno adduunyadu waa xaadith oo mar bay bilaabmatay iyo inaynu nidhaahno adduunyada qaarkeedna waa xaadith qaarkeedna waa qadiim waxaynu arkaynaa in kownka waxyaabo badan oo cusub oo aan hore u jiri jirin mar kasta ay yimaadaan sida roobka duufaanada dabaylaha dadka dhalanaya dadka dhimanaya marka qofna kuma doodi karo oo ma oran karo adduunyadu weligeed waa qadiim iyadoo arkayno in qaybo badan oo adduunyada ka midi maalin kasta wax cusub ay ku soo kordhiyaan marka saddexdaa ikhtiyaar ayaa qofka u bannaan haddii markaa waynu soo marnay adduunyadu inaanay qadiim ahayn oo waynagii soo sheegay ilaa 7 daliil oo burinayo qodobkaas mar haddaba haddii adduunyadu xaadith ay noqoto wax allii waxa ka dambeeya oo dhami aad bay u sahlan yihiin macrakadu waxay ka taagan tahayna waa kownka marka taa markaynu ka soo gudubno ayaa waxaan leenahay mawjuudka iyo mawjuudaadka waxaynu qaybaynaa ilaa 4 qaybood oo waxaan leenahay al-mawjuudu imma an yakuna waajiban aw mumkinan wal-mumkin la budda lahu min waajib al-wujud ka labaad al-mawjuudu imma an yakuna qadiiman aw xaadithan wal-xaadithu la budda lahu min qadiim ka saddexaad al-mawjuudu imma an yakuna khaaliqan wa imma an yakuna makhluuqan wal-makhluuqu la budda lahu min khaaliq al-mawjuud imma an yakuna ghaniyan wa imma an yakuna faqiiran wal-faqiiru la budda lahu min ghaniyin mawjuudka iyo mawjuudaadka jira mawjuud marka la yiraahdo ilaahay jiritaankiisa subxaanahu wa ta'aala iyo kownkan aynu joognaaba waa mawjuud marka laba loo kala qaaday in la yiraahdo mawjuudku ama waa waajibul wujuud macnaha jiritaankiisu uma baahna shardi kale ama cid kale oo u baahan yahay ma jirto ama waa mumkinul wujuud mumkin waxa looga jeedaa waa ma yuujid wama kana mawjuudan taaratan wa macduuman taaratan oo wixii marna la heli karo marna waayi karo mumkin sida makhluuqaadkan adduunyada ku nool oo kale haddaba shay kasta oo mumkin ah la budda lahu min waajib al-wujud
waxa laga maarmaana inuu helo ama ay ka dambayso cid waajib lwujuud waayo shaygan mumkinka ah ee marna jiri kara marna la waayi kara tarjiix bigayri murajjih ma banaana waa in labadan daraf cid xoojisa la helaa oo cadam la'aantii iyo jiritaan la'aantii ka soo saarta oo wujuudka iyo jiritaanka keenta isagoo isma soo saari karo faaqidu shay laa yucdi baa layidhi laba qaawani isma qaadaan markaa shay isagiisii aan taag lahayn isma abuuri karo kownka isma keeni karo marka waa inay jirto iyadu cid aan u baahnayn oo waajibul wujuuda oo jiritaankeedu shardi kale aanu ku xidhnayn talabaad waxa weeyaan almawjuud ima an yakuuna qadiiman aw xaadisan mawjuudka jira ama waa qadiim ama waa xaadis oo caqliga hadda inoo sheegaya haddaba shay kasta oo xaaditha walxaadith laabudda lahu min qadiim shay kasta oo xaaditha waxa laga maarmaana inay jirto cid qadiima waayo xaadithku haddii aan qadiim jirin xaadith ma abuurmi karo xaadith ma iman karo xaadithka waxa u shardiya qadiim shay qadiima marka la helo unbaa xaadith la heli kara laba xaadith iyagu isma jirsiin karaan oo maxay ahayd laba qawayn isma qaadaan shay isagiisii xaaditha oo u baahan in la jirsiiyo oo u baahan in kownka iyo makhluuqa la keeno waxa keeni karta uun cid iyadu qadiim ah marka taa laftirkeedu waa duwa waxay inooga ahayd su'aal markii hore aan kasoo jawaabnay shuhayn kasoo jawaabnay oo ahay ilaahay yaa abuuray waxaan leenahay makhluuqaadka maxay ahaydey xaadidka ahay mar kasta waxay u baahan yihiin qadiim isagoo aan mar bilaabin haddii qadiimkaa la waayo xaadidka la heli maayo intifaalu shardi yastalzimu intifaalu mashruud haddii shardigii la waayo mashruudka la heli maayo qadiimku wuxuu shardi u yahay xaadidka marka haddii meeshii qadiimba laga waayo xaadis iman maayo macnaha shay cusub iman maayo ka saddexaad waxa weeye almawjuud ima an yakuuna khaaliqan wa ima an yakuuna makhluuqan mawjuudku waa inuu noqdo makhluuq sida kownkan iyo innaga ama inuu noqdo khaaliq sida ilaahay subxaanahu watacaala haddaba walmakhluuqu laabudda lahu min khaaliq makhluuq kastaa wuxuu u baahan yahay khaaliq u baahan yahay makhluuq ma abuuri karo makhluuq ma samayn karo waayo isagii baa baahana ah marka makhluuqa waxa shardi u ah jiritaankiisa khaaliq baa shardi u ah afraad ku soo gabagayna waxa weeye almawjuud ima an yakuuna ghaniyan wa ima an yakuuna faqiiran mawjuudku ama waa ghani ama waa faqiir labada wax ka dhexeeya ma jiro waxaan leenahay haddaba walfaqiiru laabudda lahu min ghaniy faqiir kastaana wuxuu u baahan yahay oo shardi u ah cid ghani ah ilaahay subxaanahu watacaala waa alghani ah makhluuqaadka iyo cibaadadooda iyo wuxuu uga baahan yahay ma jirto makhluuqa kownka yaallo oo dhan hadday cir tahay iyo hadday dhul tahay iyo hadday bini aadan tahay iyo hadday xayawaan iyo xoola tahayna waa faqiir oo innagii hore u soo caddaynay oo daliil faqri walxaaja wanagi kusoo sheegay markaa shay kasta oo faqiir ah wuxuu u baahan yahay cid ghani ah haddii markaa cid ghaniya aanay jirin faqiirkani wixii u baahnaa heli maayo jiritaan buu faqiirku u baahan yahay noloshiisu inay daa'im noqoto uu sii jiraaba u baahan yahay waxa haddaba arrintaa kafayn kara cid iyadu aan baahnayn oo ghani ah marka ciddaasina waa ilaahay subxaana watacaala waana caqligaa inoo tilmaamaya waaye marka intaa markay kasoo gudubno afartaa muqadimo aan u nimaadna haddaba daliilu khalqi waliijaad daliilka abuuridda magacyo badan markaa daliilku uu leeyahy mar waxaa la dhahdaa daliil xuduud daliil ikhtirac almuxarik alawal daliil iijaad daliil khalqi iyo maxay daliil kalaami oo cosmologyga aad maqasheen halku ka yimi halkan weeyaan argument cosmologyga haddaba daliilkaas oo magacyadaa leh ayaa waxa ugu caansanaa inta badan maqli jirteen likulli xaadithin laabudda lahu min muxdith waa halka marka ay ka timi shay kasta oo xaadith ah waxa shardi ah oo qasab ah oo caqligeenu inoo sheegayaa waa in ay jirto cid muxdith ah oo keentay oo dhalisay shay kasta oo mar yimi oo wujuudka u soo baxay jiritaanka waxa shardi inay jirto cid keentay oo ka dambaysa shaygu isagu sidiisa isma sameeyo ismana abuuro
haddaba waxaynu arkaynaa marka aynu ka nimaadno kownka oo aynu soo cadaynay adduunyada iyo mawjuudaadkan aynu joogno maalin walba wax cusub baa yimaada. roob baa imanaya, daruuraa imanaya, dad baa dhalanaya, dad baa dhimanaya, xayawaan baa maxay ahayday dhimanaya oo dhalanaya, dhul gariir baa dhacaya, fulkaanaa dhacaya. waa aragtay wax maalin kasta adduunyada ka dhaca. waxaan adduunyada ka dhacaya maalin kasta ee xaadidka ah, maxaa looga jeedaa xaadidka? macnaha imika yimi ee aan weligii jiri jirin. waxyaabaha hadda yimi ee maalin kasta aynu arkayno laabudda lahu min muxdith, waa inay cidi keento. waa in cid ka dambaysa, cid fulkaanaha waa inay keento, dadkan dhalanaya waa inay cidi keento, dadkan dhimanaya waa inay cidi disho, dadkan noolaanaya waa inay cidi maxay ahayday dayso, xayawaanka dhalanaya dhimanaya waa inay cidi ka dambayso oo cidna ay dilayso cidna ay noolanayso. suurtagal maaha inaad iska tirahdo shaygu isagaa iska dhacaya biduuni sabab, sabab la'aan. dadku iyagaa iska dhalanaya iska dhimanaya, fulkaanuhu isagunbaa iska dhacaya, cid keentay ma jirto, laga aqbali maayo. waa daliil caqliyo fidriga ilaahay nagu abuuray. oo haddii iska dhaaf bini'aadanka caqliga lehee xataa ilmo yaroo sii jira dad irbaaxdo oo aad ku tiraahdo iyadaa iskaga kaa dhacday, kaa yeeli maayo kula dagaalamaya. ciddii igu dhufatay sheeg buu leeyahay, adigu ku qabsanaya oo kala ku dhigaya. haddaad tiraahdo irbaaxadu iyadaa iskaga kaa dhacday, cidiba may samayninoo cid ku dhirbaaxday oo kaa dambaysaa ma jirto, kaa yeeli maayo, kaa aqbali maayo. maxaanu kaaga yeelaynin? caqligeenna ayaa wuxuu sheegayaa wax kasta oo mar bilaabmo oo mar dhaca in cidi ay keento oo cidi ay ka dambayso. hadday dhirbaaxa tahay iyo hadday diltay iyo hadday ficil kale ay tahayba, ficil kasta oo dhaca cid baa keenaysa marka. markaa suurtagal maaha ilmihii yar inaad ku qancin karto iyadaa iskaga kaa dhacday. haddaba marka ay sidaa ay tahay oo wax caqliya ay tahay, waa wax fidrada ilaahay bini'aadamka ku abuuray. marka waxaa daliilkaa soo hoos gala daliilka cosmologiga ah ee la yidhaahdo kullu maa lahu bidaaya falaa budda lahu min sabab, alkown lahu bidaaya falaa budda lahu min sabab. wax kasta oo mar bilaabmaa sabab buu leeyahay. wax iska dhaca ma jira sabab la'aan, wax iska yimaada. haddii shaygu sabab la'aan iska imanayo, jaajuurka iyo ciiddu intay isqoyqoyso oo ay sidaa isku walaaqdo oo ay iyadu iskaxayso ayay guri inoo dhisi lahayd. guri 5 dabaq oo 4 dabaq ayaynu arki lahayd. wax adduunyada ka dhacdayna ma aha oo inaga arkeen. marka mar haddii sidaa ay tahay alkown lahu bidaaya, kownku wuxuu leeyahay balbirow. inuu kownku barbirow leeyahayna waa inagii qawaaciddii hore kusoo marnay ee hore usoo cadaynay. haddaba kownku maadaama barbirow uu leeyahay bidaayo leeyahay, falaa budda lahu min sabab, sabab waa inay jirtaan. sababi waa inay keentaa. wax iska dhici karaa ma jiro. adduunyada shay kasta oo meel mar yimaada oo mar dhaca, wax iska yimi ma ahee, waa wax mar walba ay cidi ka dambayso. markaa kownkan sabab baa ka dambaysa oo keentay. sababtaasina waa ilahay subxaana wa tacaala, ilahay baa abuuray. marka haddaba aynu taasaa ugu soo dhaafno oo kii hore ahaa, waxaynu usoo gudbi doonaa insha allahu daliilkii u dambeeyey oo ah daliil itqaan wa nudum. daliilka maxay? sugidda. wax kasta ilaahay qaabkii ugu wanaagsanaa ee ugu fiicnaayo ugu nidaamsanaa buu u sameeyey. khalal kuma jiro. haddii in yar isbedel dhici lahaa ama uu khalal dhici lahaa, nolosha ma jirteen. daliilkanna waa daliil aad iyo aad ahmiyaddiisa u leh oo waxaaba la sheegaa in mulxidkii ugu weynaa qarnigan Antonio Flew sababta ku soo noqday iyo ilxaadka kaga soo noqdayba waxay ahayd DNA-da qaabka u shaqayso iyo sida ay maxay ahayday hawl maalmeedkeeda ay u wadato. la yaabka arrintaas ay ku keentay ayaa waxa uu aaminay wax arrintaas iska dhici kara oo iska samaysmi kara oo arrintii Darwin aaminsanaaye intikhaabu dabiica inaan waxaas noqon karaynin ayaa markaa uu aaminay. sidaa daraaddeed ilxaadkii uu muddada dheer uu aaminsanaa kontonka sano difaacayey uu ka soo noqday. sababta uga soo noqdayna waxa weeye waa daliilkaas. daliilka maxay? daliil itqaan. magacyo badan buu leeyahay. daliil itqaan baa la yidhahdaa, daliil cinaaya la yidhahdaa, daliil nudum baa la yidhaahdaa. magacyo badan markaa uu leeyahay. marka daliilkaasi kownkan aynu joogno iyo inaga makhluuqaadka ahee dhex taaganba ayuu inaga dhex muuqanaya. hal tusaale marka aan soo qaadan doonaa insha allahu. akhyaartuna kulli hadhow waxay ku darayaan iyagaa ku dari doona. halkaa tusaale waxaan ka soo qaadan doonaa oo ka dhigi doona dhulku keliya. waxay ku leeyihiin haddii dhulkan xajmigan maanta uu yahay
iyo qadarkan maanta uu yahay uu ka weynaan lahaa ama uu ka yaraan lahaa la tagayara surcatuhu xawaaraha uu ku socday marka uu wareegayo ama naftiisa uu ku wareegayo ama uu cadceedda ku wareegayo wuu isbedeli lahaa xajmigan maanta dhulku uu yahay oo la garanaya xajmigu uu yahay dhulku yahay xajmigaa maanta uu yahay haddii wax yar iska bedeli lahaayeen oo weynaan lahaa ama uu yaraan lahaa surcada iyo xawaaraha uu ku socdaa wuu isbedeli lahaa haddii surcada iyo xawaaradu ay isbedeshana laba mid baa dhici lahayd inuu cadceedda u dhowaado ama inuu cadceedda ka fogaado labadaasiba waxay keeni lahaayeen laba natiijo oo khatar ah oo kownka aynu ka suurta gashay haddii markaa cadceedda uu ka fogaado dee baraf iyo qabow baa loo dhiman lahaa hadduu cadceedda u dhowaadana kulayl baa loo dhiman lahaa markaa in qaabkan dhulku uu u samaysan yahay nolol ay ka suurta gasho qaabayntaa quruxda badan ee ilaahay uu qaabeeyey baa ka qayb qaadanaysa ta labaad dhulku waxa uu ku wareegaa maxay isagaa isku wareega 24 saacadoodba waxa uu isku wareegaa xawaare ah 1000 miil wax ku dhow haddaba haddii xawaaraha 1000 miil ah ee isagu isku wareegayo uu ka yaraan lahaa oo maxay ahaydey inta wax ka yar maxay ahaydey uu socon lahaa waxa ka dhalan lahaa nataa'ij khatara oo ah in maalintu ay dheeraato ama in habeenku uu dheeraado laakiin 1000 miil ee xawaaraha uu ku socday 1000 miil ilaahay uu qadaray waxa ay keentay inaan habeenkuna aanu dheeraanin maalintuna aanay dheeraanin laakiin intii loogu talagalay 24 saacadood ah ay ku socoto haddii habeenku dheeraado ee khatar baa dhici lahayd oo maxay ahaydey baraf baa hadda loo dhiman lahaa iyo qabow nabaadka iyo waxyaabaha baxayaana may baxeen haddii maalintu dheeraan lahaydna iyada laftirkeeda kulayl ayay u guban lahayd badda noloshu marka mar kasta cadceeddu ay dul taagan tahay maxay ahaydey ay dheeraato adduunyada ay dul taagan tahay mabay soo baxeenba nabaadkan iyo waxyaabaha dhirtan soo baxaysa suurtagal may ahaateen may soo baxdeen taas waa xagga wareegga isagu isku wareegaya haddii wax iska bedeli lahaayeen bal mawqica dhulku uu kaga yaalla cadceedda iyadana aan eegno cadceedda masaafo u jira haddii masaafadaas isbedesho ama uu ka dulki lahaa maxaa dhici lahaa ilaahay waxa uu dhigay dhulka oo uu u jirsiiyey cadceedda masaafo u suurto gelinaysa inuu ka helo kulaylkii uu u baahnaa iyo dugsigii uu u baahnaa haddaba haddii kulaylkaas uu ziyaadi lahaa dhir soo baxda ma suurta oo la heli lahaa may jirteen haddii ay yaraan lahaydna oo cadceeddu maxay ahaydey masaafada hadda dhulka ay u jirto ay ka soo durki lahaydna kulayl baa loogu dhiman lahaa haddii ay ka durki lahayd oo maxay ahaydey cadceeddu intaan dhulku jiro uu ka fogaan lahaana waxa loogu dhiman lahaa qabow oo dhulku dhan qabow iyo baraf ayaa fadhiisan lahaa masaafada dhulka iyo cadceeddu ay isku jiraan waa 390 milyan oo mayl marka 390 milyan ee mayl haddii wax laga soo durkin lahaa cadceedda kulayl bay cadceeddu inoo diri lahayd haddii 390 milyan ee inoo jirta dib looga durkin lahaa iyadana baraf ayaa dhulka oo dhan gadaami lahaa oo qabsan lahaa oo loogu dhiman lahaa marka qadarkaa 390 mayl ah ee ilaahay u jirsiiyey baa suurto geliyey nolosha maanta aynu ku noolnahay kownka marka halkii loogu talagalay baa ilaahay u dhigay subxaana wa tacaala ka saddexaad waa masaafada ay isku jiraan dayaxa iyo dhulku masaafada dayaxa iyo dhulku ay isku jiraan waxaa lagu qiyaasaa inay tahay 259 kilomitr haddaba haddii masaafada dhulka iyo dayaxa ay isku jiraan intaa wax ka yar ay isku soo jiri lahaayeen maxaa dhici lahaa waxaa dhici lahaa meelaha biyo shubka ah ee biyuhu ay ku soo shubmaan in ay biyo hafiyaan maalintii ugu yaraan 2 jeer biyahan maanta kownka aynu arkayno ee yaalla ayaa dhulkoo dhanba hafin lahaaba oo biyaha aawadood laguma noolaadeen ta labaad xawaaraha maanta biyuhu ay ku socdaanna way ziyaadi lahaayeen oo waxay yeelan lahaayeen awood ah in xataa buuraha ay maxay ahaydey jeexaan buuraha ay
ay meesha ka saaraanba oo buurahaba ay qaadaan. Haddaba aragti waan filayaa roobka iyo biyuhu buuraha ma qaadi karaan. laakiin hadda haddii intaa in ka yar ay iskaga soo jirsan lahaayeen dayaxa iyo dhulku, xawaaraha iyo awoodda iyo maxay ahayd xajmiga biyahaasi ay ku socdaan waxay keeni lahayd in buurahanba meesha ay ka saaraan oo masaafada ah 248 kun. halka ayaa dhigay markaa miyaa la iskaga nasiibiyey? ma suurtagal markii lagu nasiibiyo oo la yidhaahdo 94 mayl isku jiraan cadceed iyo 203 isku jiraan dayax iyo dhulku waa wax iska yimi suurtagal ma tahay? wax la aqbali kara ma tahay? la aqbali kari maayo. qodobka afraad, dhulku waxa uu leeyahay khilaaf iyo maxay ahayd gibil. gibilkaas waxay ku leeyihiin khilaafkaasi haddii intan maanta uu maxay leeyarkiisu iyo xajmigiisu uu yahay hadduu ka dabacsanaan lahaa ama uu ka yaraan lahaa ama uu ka daciifsanaan lahaa, waxa dhici lahaa in nayaasiigta iyo dhagxaan samada ka soo dhaco oo kulul iyo leebabka samada ka imanaya ee gubanaya dhulka way gubi lahaayeen. laakiin leeyarkaas ay naga celinaya. haddii sidoo kale khilaafkaasi wuxuu naga celiyaa kulaylka faraha badan leh cadceedda ka imanaya. kulaylka faraha badan iyo ashicada iyo fallaadhaha xoogga ah ee cadceedda ka imanaya ayuu qabanayaa. wuxuu soo deynayaa markaa maxay? kulayl dadku ay manaaficadsan karayaan. waa sidii maxay ahaydey laabkoo kale. laabkaasaa lasoo marinayaa intii dhulku uu xamili karay bini aadamku ay xamili karaan unba kasoo gudbaya. haddaba haddaan khilaafkaasi jiri lahayn ka war, haddii khilaafkaasi aanu jiri lahayn amaba hadduu daciif iskaba dhaafay hadduu xataa intaa maanta uu ka daciif lahaa, khilaafkaasina wuxuu ka samaysan yahay neefo badan sida oxygen iyo nitrogen iyo waxyaabahaas. haddii intaa uu ka daciifi lahaa ama uu ka awood badnaan lahaa, uu ka yaraan lahaa ama uu ka daciifi lahaa, kulaylkii cadceedda sidiisii baa bini aadamka soo geli lahaa iyo fallaadhihii cadceedda, nololna dhulka kama suurto gasheen. qodobka shanaad, jaadibiyada iyo gravitationka dhulku uu leeyahay. gravitationka dhulku waxa suurto geliyey in dhulka uu ku hayo gravitationkaasi iyo cufis jiidadkaasi waa waxa dhulka ku haya biyaha iyo hawada. biyaha iyo hawada waxa dhulka ku haya waxay waa cufis jiidadka. dayaxu ma laha hawo, biyana ma laha. sababtu waxa weeyaan waxa yar jaadibiyadiisa. cufis jiidadka dayaxu aad buu u yaryahay oo wuu ka yaryahay ka dhulka. ka dhulka ka weyn cufis jiidadka dhulka ayaa ka weyn cufis jiidadka dayaxa. taasi waxay keentay markaa cufis jiidadkii dayaxu markii uu yaraaday inaan dayaxa biyo iyo hawo midina aanay ka jirin. laakiin cufis jiidadka dhulku maadaama oo uu ka badan yahay kii dayaxa, waxa ka jirta nolol oo biyo iyo hawo ayaa ka jirta. haddaba ka waran haddii cufis jiidadka dhulku uu noqon lahaa intan maanta uu yahay mid ka yar oo tusaale ahaan uu noqon lahaa ka dayaxa oo kale. haddii taasi ay dhici lahayd, biyana lama heleen, hawona lama heleen. haddii biyo iyo hawo la waayana, dadka qabow baa dili lahaa. habeenkii waxa loogu dhiman lahaa baraf baa loogu dhiman lahaa. marka waayay maalintiina qorraxda dadka dili lahayd. marka cufis jiidadka maanta intaa uu yahay, waxaan filayaa inaan weyta erinu habaan malaynayaa. cufis jiidadku maanta intaa dhulka ah, haddii intaa maanta uu ka yaraan lahaa, nolol kama suurto gasheen. nolosha dhulka inay ka suurto gasho waxa qayb ka ah cufis jiidadka qayb ka ah. weliba qadarka loo dhigay ee ilaahay u dhigay ayaa suurto gelinaya. haddaba suurtagal miyay tahay in lawanagay soo marnay waxa mumkin ah cufis jiidadka dhulku maanta intaa uu inuu noqdo. sidoo kale waxa mumkin ah cufis jiidadka dhulku inuu noqdo cufis jiidadka dayaxa oo kale. maxaa haddaba suurto geliyey in cufis jiidadkii dhulku uu noqdo intan maanta uu yahay oo ka duway ka dayaxa? wax iska dhacayba? ma nasiibisba? ma wax maxay ahaydey iska yimiba? suurtagal ma tahay inta waxa dadka laga dhaadhicin karo ama caqligeynu uu aqbali karo? wax caqligeynu uu aqbali karo oo suurtagala ma aha. waxaan ku dari lahayn badaha. marka waxaan filayaa ilaa 5 qodob baan ka sheegnay oo mid kastaaba ay suurto gelinayso in dhulka nolol ay ka jirto.
oo shantaa qodob haddaan midna aanu jir lahayn dhulkan maanta aynu joogno nolol kama suurta gasheen dhulkan maanta aynu joogno nolol kama suurta gasheen waxyaabahaasaa suurta geliyey markaa in nolol ay ka jirto waxaan ku yar dari lahaa badaha baduhu iyagaa kayd u ah biyahan aynu hayno baduhu waxa maanta maxay haydii haddii maanta maxay haydii inta oo aragtama filaya baduhu waxay leeyihiin gun bay leeyihiin gunta ay leeyihiin haddii cumqigooda iyo guntoodu maanta intan ay tahay ay ka dheeraan lahayd dhowr mitir haddii ay ka dheeraan lahayd bay ku leeyihin culimadu hadda intaa maanta ay tahay haddii ay ka dheeraan lahayd maxaa dhici lahaa intaa maanta ay tahay haddii ay baddu ka dheeraan lahayd oo gunteedu xoog usii dheeraan lahayd oo jooggeedu uu dheeraan lahaa waxa ay baduhu nuugi lahaayeen oksijiinta iyo carbon laba oxide-ka adduunyada taalla haddii oksijiin iyo carbon la waayana ka war haddii oksijiin iyo carbon la waayana nolol dhulku ka suurtageli mayso bini aadamna noolaan maayo dhirna jiri maayaan dhirtuna noolaan mayso dhirta laftirkeedu waxaanay qaadataa waa carbon laba oxide nolosha waxaa suurtagelinaya markaa waa oksijiintii iyo carbonkaas haddii markaa maanta intaa ay tahay ay dhowr mitir hoos uga sii dheeraan lahayd oksijiin iyo carbonba baduhunbaa fuuqsan lahaa nolol lama suurta gasheen marka baduhu waxay aasaas u yihiin circulationka iyo wareegga biyuhu ay ku samaysmaan ee roobku ku samaysmo waa ogtihiin fallaadhaha cadceedda ku dhaca biyaha badda iyo kuwa webiyada uumigaa ka soo baxaa kor u kaca kadibna roobka sameeya waay haddii markaa badahaas jiri lahayn suurtagal ma noqon lahayn maxay in biyo la helo haddaba waxay ku leeyihiin haddii masaafadan badaha u dhexeeya ee labada badood isku jiraan inta maanta ay isku jiraan ay ka yaraan lahaayeen uumiga soo baxaya ee badaha ka soo baxaya suurtagal may ahaateen oo uumi yar baa soo bixi lahaa laakiin uumiga faraha badan lee soo baxaya biyaha inoo samaynaya may suurta gasheen waxaad ka warantaa haddii waxaad ogtihiin dhulka inta biyaha ah iyo inta qalaylka ah maxaa badan inta biyaha abaa badan boqolkiiba dhowr iyo toddobaatan ah koodaad intaan filaya inta dhulka ahina waa inta soo hadhay dhowr iyo labaatan ka soo hadhay marka waran haddii dhulku uu noqon lahaa inta qalalan ay noqon lahayd boqolkiiba 70 baduhuna ay noqon lahaayeen boqolkiiba 20 maxaa dhici lahaa haddii taasi ay dhici lahayd nololimo suurta gashay sababtu waxa weeyaan biyaha aynu helna iyo roobka aynu helnaa waxa uu ka soo baxaa maxay uumiga badda haddaba haddii baduhu maanta ay yaryaraan lahaayeen oo xajmigu maanta ay yihiin intan uu ka yaraan lahaa uumi fara badan muu soo baxeen oo kafeeyo oo ku filaada dhulka qalalan ee faraha badan uumi yar baa soo bixi lahaa misikoolkaa yarna wuxuu ku diilahaa badaha hareeraheeda inta yaree qalalan ee badaha hareeraheeda ku diilahaa dhulka inta kale ee qalalanna may gaadheen roobkii uumigii soo baxay waayo uumiga soo baxay baa uumi yaroo koobana ilaa badii baa yar soo maa badii maadaamay yar yihiin maanta way badan yihiin laakiin haddii lacalaba intan ay ka yaran lahaayeen boqolkiiba 20 dhulaata ay kownka ka noqon lahaayeen maanta boqolkiiba 70 bay ka yihiin haddii taasi ay dhici lahayd waxay ku leeyihiin uumiga soo baxaa wuxuu noqon lahaa uumi yaroo kooban oo ku filan qaybo yar oo dhulka u ah dhulkoo dhan mu wada gaadheen taasi waxay keeni lahayd markaa in dhulka inta qalalan ee kale biyo la'aan loogu dhinto nolol aan ka suurta gashay laakiin maanta in nolol ay suurta gasho waxa sabab u ah inta dhulka qalalan baa yar inta biyaha ah baa badan dabadeed waxa badihii ka soo baxaya uumi aad u fara badan oo keenaya roob aad u badan oo dhulka dhan wada gaaray marka uumiga uu soo baxo dabaylaha qaadaya dabaylahaas waxay gaarsiinayaan dhulka ka fogaa badaha ilaa haddaan dabayluhu jir lahayn marka uumigu soo baxo roobku wuxuu ku duldi ilaa badaha quraatuma ku duldi ilaa laakiin dabaylahan waxay sabab u yihiin uumigii soo baxay badaha dushooda ka soo baxay badaha dushooda taagnaa in dabaylahani ay qaadaan ay kaxeeyaan oo ay geeyaan dhul fog oo badaha ka fog oo maxay hayday ka durugsan marka waxaad arkaysaa haddii ay marka bal la iska odhan karaa marka ilaahay dhulka boqolkiiba 20 kan qalalan oo wax iska dhacay waxaa ma odhan karnaa wax suurtagal ma ah
boqolkiiba 20 haddii dhulku maanta aanu qalalaan lahayn oo boqolkiiba 70 ay qalalaan lahayn nolol ma isku gashay marka ma wax iska yiifa qodobka ugu dambeeya xagga badahan ku soo gudbin waxa weeye biyaha baduhu waa dhanaan bal ka waran haddii macaan noqon lahayn maxaa dhici lahaa waxay ku leeyihiin haddii biyaha baduhu ay macaan noqon lahaayeen waxa dhici lahaa xayawaanka ku nool marka biyaha badda ay ku dhintaan sida kalluunka iyo waxyaabaha ku jira ur bay samayn lahaayeen ur marka ay sameeyaan qarmuunka ka soo baxa ee badaha ka yimaada waxa kownka ku noolee bini'aadana iyo xayawaana uu dil lahaa waxay u dhiman lahaayeen qarmuunkaas u dhiman lahaayeen laakiin si aanay taas u dhicin ayaa ilaahay wuxuu biyihii badaha uu ka dhigay biyo dhanaan oo xayawaan ku dhintaa aanu ur samaynayn dabbiga badda dadka gashay midabkoodun baad dhamanaysaa une laakiin ur ka soo bixi mayso maxaa diidaya ur inay ka soo baxdo ilaa xayawaan baa maalin kasta ku dhimanayo nibil baa dhimanayo kalluun baa dhimanayo oo maraakiib baa ku degayso dad baa waalidka dadka tahriibiyaasha maalmo ku dhimanaya in ur ay samayso baddu waxa diidaya biyaha dhanaanka ah dhanaankana haddaba biyuhu baddu macaanna way noqon kari lahaayeen sida webiyada oo kale dhanaanna way noqon lahaayeen sida maanta ay yihiin ee maxaa ka dhigay dhanaan ay macaan noqon waayeen ma iska odhan karta waa probability iska dhacay waa ixtimaalaad iska yimi oo sidaasun bay iskaga samaysmeen oo sidaasun bay iska noqotay ma la aqbali karaa warkaas war aynu aqbali karayna maaha marka laisku soo ururiyo halkaa tusaale ayaan ku soo kobo oo dhulkii uun ah oo mid kasta haddii aynu eegno oo sidaa ilaahay ugu talagalay aanay noqon lahayna sida kale ay u dhici lahayd kownka iyo nolosha bini'aadanku ay nool yihiin iyo jiritaanka adduunyaduba aanay suurtagal ahayn inay jirto waxaasoo dhan maxay u baahan yihin haddaba waxay u baahan yihiin cid caliima waxaad arkaysaa nidaam kasta oo aynu soo sheegnay iyo qodob kasta oo aynu soo sheegnay cid baa halkaa dhigtay oo diyaarsan wax isagu iska samaysmay oo iska diyaarsamay oo sidaa iska noqday oo ixtimaalkaa iska noqday ma jiro suurtagalna maaha in markaa uu noqdo markaa daliilkani wuxuu ku tusayaa in alla xakiim ah uu ka dambeeyo oo caliim ah uu ka dambeeyo qofku marka aanu xikmad lahayn haddii qof imika jaahila aad tahay guudhiska war jaajuulkii buu qalqaloocinayaa ciidda iyo sawirka inta laysku qasayo percentage laysku qasayo garan maayo inta biyo lagu qasayo garan maayo hadduu doono biyo dhicinayaa hadduu doono sawirka ku badinayaa hadduu doono ciiddu ku badinayaa hadhow markuu soo qaadee jaajuulkii qaabka loogu dhisayo loogu qabanaya garan maayo wuu isku dhex daadinaya wixii ninka jaahilkii laakiin ninka aqoonta u leh wastaadka ama foormaanka ama injineerka uu garanayaa percentage-ka ciidda loo baahan yahay inta sawirka loo baahan yahay inta biyo loo baahan yahay qaabka jaajuulka loo dhigayo iyo laynka sida loogu toosinayo u yaqaana haddaba ka waran kownkanaynu taagannahay ee aynu nihi haddii gravitationka ama cusjiidisku in yar isbedel lahaa haddii maxay ahaydey cadceeddu intaa ka soo dhowaan lahayd haddii wareegga dhulku xawaaraha uu ku socdaa intaa maxay ahaydey uu ka badan lahaa ama uu ka yaraan lahaa nololama suurta gashan dhulkuna ma suurta galan aynu leenahay wax iska yimiba markaa suurtagal ma tahay sida aynaan u aqbalaynin marka maanta warshaduhu wax soo saaran yadaa warshadda iyo makiinadu waxaan isku qasqasaysa un oo sidaa ku samaynaysa aynaan u aqbalayn ayaynaan maantana u aqbalaynin kownka qaabkaa quruxda badan u nidaamsan isagaa iska yimi oo iska dhacay haddii maanta laga sheekeeyo xubnaha bini'aadanka isha caqligiisa maskaxda aragga maqalka intaasaa cilmi dhan ah oo aana cidi ka dhammaanayn waxaan ku soo koobno keliyaat waxa weeye waa dhulka iyo sida nolol uga suurtagelaysay iyo waxyaabihii suurtageliyey oo haddii qaababkaa aynu soo sheegnay ay isbedeli lahaayeen ama wax ka mid uu isbedeli lahaa suurtagal aanay ahaateen in markaa nolol ay ka jirto intaasaan kusoo koobaya insha allahu wixii aan saxay fa min allah wixii aan khaldina fa min nafsi min shaytaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu